الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa xarunta la talinta dadka iyo horumarinta shaqada Dictoray Safiin walaashay la hadlaysaa waa Dictoray Safiin. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijkan aad u dhib badan oo soo noqnoqday ee dadka shacabka lagu lagu barakicinayo meeshan Saybiyaana waxaan leeyahay dadku waa dad islaam ah waa dad walaala ah waa dad aan u qalmin maanta in la indhaha faraha laga geliyo ama la qaxiyo ama la barakiciyo ayadoo dhalinyarteedii iyo ilmihii agoontaha iyo dadkii meeshaas deganaa ay guddigood jiidaha ku jiraan una badan yihiin dadka meeshaas ku jira ilmo agoon ah loona baahnaa inay dawladdu si kale u maareyso oo ama ay rarto oo ay qarash ku beesho oo meesha ay ka rarto ama ay dadka haddii dadku uu maras yahay oo nuucaas yahay dhowr iyo 20 sanana meesha uu deganaa waxay ku noqon kartaa wax dhib badan dawladdu la qaybsato xanuunka dadkaas ay qabaan ay meelo kala geeyaan haba iska fogaatee meelo kale ay geeyaan kadib markii lagu dilay dhalinyaro badan meeshaas la iskaga dilay gardarro la iskaga dilay rag saraakiil ay ku dileen haddana maanta in loo caga jugleeyo ilmihii iyo haweenkii waan arrin aan haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeed ka soo horjeedno aadna ah wax u foolxun haddaba aniga tala waxaan ku bixin lahaa maanta in lagu mashquulo maahan damdamiska iyo Saybiyaana iyo arrimo aan macquul ahayn in lagu mashquulo ma ahan waxaan dhihi lahaa dadkaas halkaas deganu waa dad dawlad ku nool ah ma ahan dad ku degan guri dhul leeyahay dawladdu leedahay dad ku degan ma ahan laakiin waa dad dareensan in lagu samaynayo wax la yiraahdo faduul in lagu samaynayo haddana dhulkaas aysan ahayn dhul dawladdu u baahan tahay ay gadanayaan shirkado soo baxay oo hadeertaan ka soo baxay dawladdan Xasan Sheikh oo shakhsiyaad ah oo dhulboob ah oo raba inay haddii Ilaahay ku reeyay ummadii Soomaaliyeed meel kasta degan yihiin sanka ka galaan oo wax kasta oo shirkado ah ay ku afduubtaan oo lacag ku raadsadaan hadday ay boor tahay hadday banaanka tahay hadday badii tahay hadday meel kasta tahayba haddaba waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya ma waxay diyaar u tahay in intaan ka reysan lahayn tii hore wixii ka sii horeeyba inay ayadu hadda dadkii burbur iyo dhibaato u horseeday diyaar u tahay miya ma waxay diyaar u tahay inay dalka ku handado oo ku boobto shakhsiyaad shirkado ay keensadeen oo haddii Ilaahay ku reeyay caruurtii iyo dadkii ay ku baabi'iso dawladdu ma waxay diyaar u tahay shakhsiyaad inay bal wax kale iska dhaafeen jidadkii waaweynaa dawladda hoose ay qashinka loogu talagalay inay ka qaado guryaha canshuurta laga qaato inay ayadii shirkado inta keensato guryaha canshuur ka qaadato qashinkii la qaadi jira tiraahdo dadka ku qaata dhabarka haddii alku madaxa saartahay meelaha dukaamada waaweynka ama ganacsiga ah inay qashinkoodii tiraahdo adinka qaata oo madaxa saarta ciidiina ay tiraahdo waa qaadanaynaa dhul waxaan guryahan ku dhisanaynaa ama guryaha lagu buuxsanayaa marka shirkadaha noocaas ah oo soo yaacay oo shakhsiyaadku wataan oo dhulkii u soo yaacay oo hanti boobka ah oo dad boobka ah dawladdu haddaysan ka warqabin shacabku wuu ka warqabaan ogyahay wuxuuna u dagaalamayaa shacabku inuu nin faciisa uu boobo inuu nin faciisa guryaha ka ceyrsado inuu nin faciisa canshuurtiina ka qaato qashinkiina madaxa saare u yiraahdo aniga waxaan leeyahay waxa dadkaasi iyo aniga hadlahayo dawlad ku nool baana waana jecelnahay dawladda aad baan u jecelnahay mana jecelin inaan dhibaato iyo aan kala kulanno waxaan kula talin lahaa
inuu arrintaas la soo farageliyo gobolka banaadir hadday tahay dadka ku shaqada leh anigu madaxweynuhu ma dhahayo laakiin dadka ku shaqada leh hadday hawshaas ayagu ay wadaan oo hanti boobka dhul boobka haddii ku shirkadaha yararka ah meel kasta qof walba kor saartay $10 iyo $20 shakhsi kastoo Soomaaliya dul saarto shirkadaha hadday dawladdu aysan ka warqabin waa laga warqabaa ha ka qabato ummadda Soomaaliyeed maanta ummadana uma baahna wax dawlad ka sokeeya ee u dhaxmara dawladii ayaga uma baahna ummadda Soomaaliyeed inay shirkada ganacsiga oo arxan laawayaala oo barnaamijda laga soo abaabulay inay dadkii rafaadiyaan uma baahna hadday ka warqabaan oo ayagu la shaqaystaana waa la ogyahay waana laga warqabaa anaga waxaan maanta anigu ku soo gabagabeynaya arintayda gabar Soomaaliyeed baan ahay dadka halkaas laga kicinayo lagu barakicinayo ma ahan dad xarun dawlad raba ma ahan mana doonayaan meel dawlad laakiin waxay diidan yihiin barakicinta shirkadaha dhigmiratada ay barakicinayaan oo guryaha gadanayaan dhulka gadanayaan wax ka sameynayaan taasna wax la moogyahay ma ahane dib inta la isku noqdo shirkadaha hana la ka celiyo dadka hadii Ilaahay ku reeyahay shakhsiyaadka oo dadkii dhigmiratada hana la ka qabto Soomaaliya ha laga qabto hadaan laga qaban wallaahi inaan hadeer la isku noqonayo dhibaato iyo burbur iyo dagaal kala tagi meesha ugu dambeysay Xasan Sheekh maanta dawladdiisa waxay la kulmi doontaa dhibaato aad u adag bay la kulmi doontaa hadduusan sharaftii shalay wax ku qabsaday iyo wanaagii shalay uu loogu doortay uusan dib inta ugu soo noqon dadkan xum oo hadii al ku raahay arxan laawayaasha dhigmiratada uusan dadka ka qaban waa la isku soo noqonayaa tan dhibaato weyn ba ay noo noqonaysaa anoo ku goodeen oo nacab dagaal oo dacal aan doonin dagaal haddana Xasan Sheekh waa ku haybad beelhaya waa ku dawladnimo beelhaya waa ku sharaf beelhaya dib dambana dalkan ugu soo noqon mahayo asagii wax la mid ahba haddii kala maanta shirkadahan qashinka oo dadkii baabiiyay oo dhulkii boobahaya ha ka qabto wax allaale wixii qaban kara ha qabteen oo islaam waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi dadkan in la shiido masheer la galaa shatiga dawladnimo masheerka kala waxaan shabakado shaqeeya miyaa dibkiyo shidadan ha sheegin miyaa shakigu waa dhabe ha sheegin miyaa intaan sheegnana mashaabad xunbaa شباب يكون شراك ميا شغل بدنا شيء ميا شراب يا سيدا إنو شاهي شعب كديقي سم شي لعبا